معلنكو فيري قال لي يا وحق الحكومة مثلا هو مربي مربي هو والله وارك أنت أكو حكومة نبى وحوليه مال بان إميد وحنكو أرك معلنكيجا أضيء دأ الله معلنكيجا وأنا دأ هو أرك مثلا الله معلنكي يرى أنت وحي يدي يجري وحي يجري كم حسوس حسوسي وحي يجري واحد اللي بكريم باكرة وانكو واحد حسوسني إحسوسي يربل وحي يجري مالين ما أجيت ساعد الحظي ها مالين تاس هاي مالين ساعد الحد يجري waxaan ugu tiri ardada kulligii darbiga u jeesta indhahana isku qabta waa idin baarayaay waana baartu yiri markaana baartay jeebkayga laga helay saacadii ana xaday anoo soo qarqaraya goorma lagu ceebeen doona ima aadan sheegin ima aadan ceebeen qofkii lahaa waa si saacada ma xasuusta wuxuu yiri aniga laftayda marka idin baaraya indhaha isku hayay inaan arag baan rabay qofka aan kala ka soo saaray marka ma ku xasuusto adiga maalinka murabbi hada ardaydu wuxuu yiri jeesa indhaha isku qabta sayse oo arag midka laga soo bixiyay anna wuxuu yiri waxa idin baaray anoon indhaha baartay indhahayga faa waa tarbiya cajiib waa dadkaas hadda waxa noqon doona arintaas ma iloobi doono qofkaas in macallin oo aan aqaano hadda dhintay aqaano wuxuu igu dhihi jiray marka aan meesha isla joogno arday markuu dhiban yimaado waa nooga naxariis badan lacag hadii ta asaab bixinay maxaa dhacay waan iloobi laahay kulaha fasalka labaad nin macallin sidoo ii galay ii wanaajiyay tii abaalkeedan haya iskool aan joogno qof noo keenay wiilkan magaciisa ma aqaanay kulaha hal qoro lacagta ana dhiibay meel ka yimid wax kale ma yaqaan lacagta ka dhiibay wax adeer waxay taru yiri abaalkaas waa la gashaday ayaa wali u socda marka hadii aan ardaydeena aan dhaqanka wanaagsan oo dhaqanno waxa loo baahan yahay maartay hal usluub inaad raacin maalin kasta hal say wax u dhigtaa habka muhaadarada macallina fasalka soo galay bal ila fiiriye macallinkaas fasalu soo galay sabuuradu buuxiyay kadib wuxuu yiri soo jeesta waa qorteen waa laqbal galay waxa laga yaabaa meelaha qaar kood in loo haysto dariiqada ugu fiican ee 10 lagu bixiyo anna ila ma aha sabuurada buuxi kadib laqbeeba dariiqada ila xawaani idinka arki doona dad fiicanta waa ka doodeenay laakiin waxa ka fiican waxa ardada waxay dhigayaan waxay san aqoon marka kalena marka macnaynaysan waxay ku adag erayada la sheegay markaas waxa gafaya mafhuumkii dhamaa فهمك يا قفاية واحد فهم كل إسرائيل لنا قفاية سو كما فعنا إننا 10 دقائق من شرحه مركي أرداد فهمان حتى قريت هاي أنقرأ أريد أدغان شرحي وفهم جودا شرحي هدي قريت الغبا هنا أحيانا قرية هذا أنا شرحي هذا أنا قرية هذا أنا شرحي هذا أنا قرية وأيهن واحد بدنا نسيفه دي لكن 10 هقورين aanan ardaydu ay fahamsaneen waayo wax ay fahmeen iska guuridiyaan ama u yeeris ma aqaan yeeriska barashada 10 ku yeeris aha oo la baranayay sida wax loo qoro laakiin 10 hadaa galaas soo gasho sabuurada gees buuxi hadana tir hadana buuxi waa wixii aan sheegaynay arday ku kalifin wax uu san kari karin maanta sabuurada la qoro taa iska fiirina marka macallinka inuusan hal usluub raacin usluubka waxbarashada ma qasiyoodo habab waxbarashada jira waa badiyeen Soomaa hababka waxbarashada marba hab isticmaal cuntooyinka midee u jeceshahay baasto iska da baasto jeceshahay maalin kasta baasto ma rabtaa maya ma rabo hatta hadii aan aragno inteenan waxaan loo keenay ka soo qaad bariis asaan ugu marka hore u baahaneen baahida haysay hatta kulaalkii raga ku cunay iyadoo daqiiqa la cunay waa la wada waa daragnay bal idin ku soo celi waa lagu celi bariis waa bariis kale ma rabtaan
ما هذا ميل وما هين ميل وما هيسان مياها باباي كورما ميل مو هنا ايش اللي قلنا يا رباني وبريس قلي واي باباي كورما وكاس والو باي كاس كده باباي قاعد ميلو قال كله ميل وبريس قلي كلمه ميا يا وين بريسي باباي لكن waxa ka dharagta ogtahay maxaa kala hadana baabaay waa dhama wax kala biya jira ma labaniyad ka warrama taas dhimana keen cabitaan kale iyo waxyaalahan kale oo koola dhahnay wax ka warram ma taa waa isaga dejinayna waa u jeedaa in aan nooc jecelna kala nooc jecelna anagoo mid ka dharagnaan mid kala cunayna mararka qaar marka buugta akhrisanayno buugaad ku daalaysaa waa iska dhigaa mid kale soo qabsanaa xogaha refreshment kii waa ka duway mid kale xogaha sheekaysa ku jirto kii hore waxa waaye buug wuxuu ahaa culays saaray oo wax maartay wax gaal mid kale ku naso qaarkiin ma soo ma dhici karto markay wax kale ku daalaan ayaga oo daalan inay Facebook aadaan oo ay fresh noqdaan refreshment Facebook aadaan qofku waa iska jecel yahay kala doon TV-ga aan fiirsanayno TV-ga marka la fiirsanayo hal shay ma taagna 7 second waxay ku leeyihiin waa in shay kasta isbedela si soo qofku u daalin 7 second kasta dhagdhag shay kale maanta dhan marka waa la socotaa wax cusub hadii hal shay cabaar u taagnaado waa daalina macallin hal meel taagan oo dhaqdhaqaaq lahayn iyo waxa aan la bedelin hal maalin ka sida leeyahay hatta ardada sida guryaha kala weey guriga asoo sidii sararihiisa yaalaan ba inta la kala bedelo buu qurux noqonaya waa ka ageediya alaab lagu soo kordhin laakiin waa la bedelay macallinka ha bedelo marka wax oo maalin kasta ardada ha u bedelo waxa kamida arrimaha galaaska dibka ka u keena waxa kamida macallin aan jeclayn haye shaqadiisa ma jiraa يا جعلين قاعد تقبل يقرأ لا هذا قاعد تاجا وحن معلمين جعلين أو حاجة قصب إسقى جوجو ولا سوا قصبه ما هو سأو تاكتين كرر ما تاجي ما هو سألو تاجي خلاص ما تاجي أنت قاعد شقدنا وجعلنا هذا جعلين ما قلنا قفك أن شقدنا جعلين إنه سكده فورون waxa ajaashahay waa kuma mantahay waa ku dadaalaysaa ujeedo fog ba ka leedahay ujeedo yoomi ah ujeedo bileed bishaar dhamaaday waxa shaqadeed ma ujeedo fog aan leh ummad baan tarbiyeynaya dad baan soo saaraya guriga ma dhisaayo dad aan dhisaya dad hadii la dhiso waxaan kale iga dhismaayo laakiin dadkeen buug la yiraahdo binaa'ul ajyaal sida jiilka loo dhiso وآد وهلا ضدك إن واحد مهمة ده إتها قفك إلى الرسول شينها دربي وحول هاجر وين دربي وينه سيء سنة عدو وسودوني سنة كسنة عدو وسودوني جري أو سوقي جري ما هذا الباب بدأ دربي يدو إليه ولا غير عليه واردياش الجوجا ألا لوش لسيا أنت دربي لسن قف لس بس اسمه نغنس قف لسنا أنا مركب قف كي أنا لسنا waxaan bedeli lahaa oo macallinka aan sheegayno kala noqon lahaa ardaygaas aan dhisayna mas'uuliyad waxa ka weyn marka meesha aan u soconaba ma aha mushaar yar oo la qaatay iyo wax yar oo maartay bishii la helay waa ka nagala weyn tahay shaqadan waa jeclahay hadama waa jeceshahay ilmaha aan ku korsataa meeda wax dhibays ilmaha aan ku korsataa waana jeceshahay aqasab nolosha laakiin macallin aan jeclayn waa la garan karaa oo meena ardadiisuna waa fahmayaan shaqada inuu jeclayn oo shaqada rabin wax kale waayay waa ku meel gaaraya marka waa shaqada waa jecelnahay waayo bini aadam oo la tarbiyeeyo waa la garan karaa ajarka ay leedahay iyo wax ay tarayso qofkaas ugu leeyahay hatta inta adduunyada aan joogno wax badan aan ku helaynaa waxa keeni kara macallin xanaaq badan wax kasto la sheegaba wax yar hadii dhacdo geesuu la baxaya يا وحيار كستو كحناقيا ساسين نانيس u bixiyeen marka naanaysa u bixiyeen markuu sii jeestaa naanaysa la dhahayaa
markuu sii jeestaba waa la dhahayaa yaa dhahay yaa maanta dhan waa lagu jaraxsan marka maalintaas oo xanaaqayasna xisad ma jirto waa lagu kala baxay marka wax meel far gaartoon faras gaarin ma xayro aad xalin karto meel far ay gaarto oo hadhow faras gaarin mishkil dagaalkaas keenay waxa dhigata in la isdareeraba ayala qaarkood marka annaga inaan carino oo kicino maxamed tarees inta wax dajin kara macallin xanaaqsan wuxuu qaban karaa asaa xanaaqsan asbaabahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaalaha keeni kara doorka macallinka uu ku leeyahay maadadaadii ma ka adag tahay dariiqada aa u dhigaysa ma samaysaa dariiqada aa u dhigaysa ma ku hagaagsan tahay habka aa u dhigaysa ma ku hagaagsan macaamilka ardadaada see yahay ma ku kaliftaa waxaysan awoodi karin waxaa tahay qof neerfoos oo xanaaq badan mushkiladaha yimaada see u xalisaa usluubkee u raacdaa marka aa wax dhigayso hal usluub maa raacdaa maalin kasta arrimahaas haday noo korna annaga sabab u noqonayno arrimahaas oo dhan waxay keenayaan inaan sabab u noqono laakiin xal waxaa u cagsigeed qodobadaas aan soo sheegnay haddaan tirino 10kaas qodobkee ugu daran qodobka ugu daran kee waayo maadadiisa ma yaqaano miyaa maadada ma gaarsiin kara miyaa codka waa hooseeya dhaqankiisu ma fiicna galaaska lama wadaago wax ardada waa aamusan habeen imaan waa aamusan yihiin hal usluubu raacaa wuxuu kalifaa wuxuusan aqoon waxa aysan kari karin macallinku shaqadiisa ma jecla waa xanaaqlow neerboosa haye 10kaas qodob haye qodobka 9aad qof aan shaqadiisa jeclayn waa hore waxaan garanayaa qofaa waxaan aqaanay shaqadii inuu ka tago rabaa waagii hore marka waxa waagii hore qofka hadii intuu dambi galo maxkamadda xukunto waa la ruqsayn jiray waana qof technician meel dhan wax ka ah oo la yaqaan macruuf wuxuu sameeyay meel kuwa sigaar gaday laba dhowr istaag ka dafay waa la orday waa soo qabtay waa soo qabtay stage-ka la geeyay baqa 3 bilood iyo wax 6 bilood lagu xukumay bas waa soo rabay hadhowna shaqada laga saaray marka shaqada daad rabin istaaga la ordaysa marka macallinka aan shaqada rabin muxuu la ordaya maxaa uu fasal ka sameynaya shaqa ma rabo shaqada ma jeclo qodobkaas waxa leeyahay ma ku waafaqsantiin haye bal qof bahaye carada badan meel kuguma sinta meel aad rabin bay maartay dhibay keeni kartaa ina arday ina feerto dagaal meesha ka kiciso hadaa adiga mar intaad arday isku dhacdaan isfeertaanna waa iska qasab ardada kale inay lugta ku bixiyaan cabaan hadii lagu waayana mar dambe laga helo miis hoosti iska caaditas hadaa dagaal isku gasho adaa ka jawaabay haye maxaa ku xiga laba qodob qodobka lixaad ardayda la caburinta laga badiyo kadibna ay qarxaan ardayga yani macalinka maadada waa qof hawshan anta maadada ogalaas markuu soo galo wax sharxi la waa garan waay sabuuradu tirtir siiri asaga isku bilaabay maxamed tirtir asaas tirtiray hal usluub soo celina haye usluub wax aanu codayno marka qodobka ugu daran qodobka koowaad oo ah maadadiisa ma yaqaano ma qaatiri gacantaaga laba hayna maadada ma gudbin karo haye shibaa laga yeelo iska ogoliye codkiisa hooseeye waa ka bixi doona baahida ardada dhaqankooda dhaqan xun ayuu kula dhaqmaa iyo xanaaq isku dardarno taas waa la badan yahay dhaqanka xun iyo macaamilka wuxuu ku kalifaa wax aysan kari karin shaqadiisa ma jecla taasina waa la badan yahay laba hadda aad loogu badan yahay waa midee dhaqan xumada iyo shaqada ma jecla waa isleedahay marka